بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها ثم أما بعد أحبة الإيمان waxaan jeclahay wax yar insha allahu tacaala dadka walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan in aan ugu tahniyeeyo bishii ramadaan oo ilaahay subxaana wa tacaala uuna soo gaarsiiyey oo maanta kow ah sanadku waa 1438 waa bishii shacbaan baa bishii ramadaan oo bishii sagaalaad ayaa maanta baa kow noo ah waafaqsanna bishii may 27 2017 waxaa kaloo intaa raacin lahaa kelimad yar oo ku saabsan ruknigan arkaamta islaamka ka mida ama tiirasha islaamka ka mid oo inoo bilowday axkaamtiis wax yar ku saabsan marka hore tacriifka waxaan ku horeeynaa soom waxa uu yahay soomka luqada carabiga waxaa lagu yidhahdaa waa kelima carabiya waxaa lagu yidhahdaa alimsaaku aw ilkafu can shay qofku inuu shay uu ka afhaysto ama uu ka hadho ayaa la yidhahdaa wuxuu doon noqon karaa shayga asaga ah waxaa loo daliishadaa ilaahi subxaana wa tacaala faquulii inii nadartu liraxmaani sawman umu ciisa maryam ilahi markuu subxaana wa tacaala waxaa ku tidhahdaa hadalka waa ka soomanahay xagga sharciga waxaa la yidhaahdaa alimsaaku can almuftiraati min طuluuci اlfajri ilaa guruubi الshamsi maca الniya inuu qofku ka afhaysto uu ka hadho waxyaabaha soomka cunitaanka iyo cabitaanka ama waxyaabaha buriya soonka buriya laga bilaabo fajarka ilaa iyo qoraxdu inta ka dhacaysa isagoo arrinta habeenkeedii soo niyooday taasaa la yidhahdaa intaasaa laga rabaa qofku in la yimaado hadduu qofku soomkii sidaa uu ku bilaabo maxaa soomkiisii uu xidhay ee uu ku soo talagalay maxaa burinaya ee intii hore uu soo dhammaystiray waxaa burinaya waxyaabaha soo socda waxaan soo qaadanaynaa insha allahu tacaala inta badan waxyaabaha la isku raacsan yahay waxaa ugu horreeya soomku wax buriyaa alaklu washurbu camdan cunitaan iyo cabitaan ogaan qofku u sameeyo ayaa soomkiisa ayaa burinaya camdantu waxay meesha ka saaraysaa hadduu qofku nisyaan wax u cuno ama wax u cabo soomkiisii inuusan buraynin raxmad ilahi ka mid tahay subxaanahu wa tacaala allah subxaanaه wa tacaala wuxuu inaga xarimay maalinka ramadaanka qofka saa'imka inuu la yimaado cunitaan iyo cabitaan wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri ثuma atimu الsiyaama ilى اlleyl waxaa kaloo soomkaa ka burinaya qofkii soomkaa soo xidhay oo soo niyooday maalinkii haddii uu la yimaado aljimaac galma hadduu la yimaado oo u tago xaas u tago iyo reer u tago isagana soomkiisii waa uu ka burayaa waxayna ka mid yihiin waxyaabaha ugu adayga shareecadu adkaysay allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahy uxila lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waxaa idiin bannaan habeenkii jimaaca dumarkiinna ayaa idiin bannaan laakiin maalinkii ilaahay waa xarimay oo waa ka reebay subxaana wa tacaala ummadda laakiin fadliga ilaahi subxaana wa tacaala inaga maalinka basa laynaga reebay habeenka waa laynoo baneeyey inaga ummadii hore waxaa la yihahdaa way ka reebanaan arrintaas habeen iyo maalin mar hadday soomba la gaadho waxaa kaloo buriya khuruujulmani qofka inay biyaha ay ka yimaadaan lagu dhalo inay ka yimaadaan isagana sababta uu ilaahay isaga keeno amaa qofka hadduu intuu hurdo kale maalinkii uu ixtilaamo isagoon isogeyn oo ay ka yimaadaan soomku kama burayo laakiin wuu qabaysanayaa soomkiisana halkii buu ka sii wadayaa waxaa kaloo soomka waxaa la diidan yahay marka waxaa weeye oo soonkaaga burinaya haddii adigu aad la timaado mubaashara ama taataabasho qof dumar aad la timaado mise maskaxdaadaad arrintaa intaad ku celcelisood kaga shaqaysiiso
ama adimahaaga inaad kaga shaqayso ama maskaxaaga inaad kaga shaqayso sababta ku yimaadaan sabab aad leedahay ayaa soonka kaa burinaysa laakiin waxaan idhi hadduu qofku hurdo iyo wax lamida kaga timaado ama khiyaar la'aanba isaga soo baxdo isagoon isagu waxba samaynin gacan af iyo adintoona iyo qalbitoona taana looma qabanayo uu ka qabaydsanaya soomka waxaa kaloo buriya walaalayaal dumarka wax khaas ku ah oo la yidhaahdo xaydka iyo nifaaska xilliga dumarku dhalma ay ku timaado bisha ramadaan mise uu ku yimaado dowradii bisha ay ku timaado iyadana soonka kama asaxayo xilligaa kadib baa la rabaa inay soo qadayso markay ka bacda xaaladda iyada waxaa kaloo soomka buriya alqayu camdan ogaan qofku inuu isu hunqaaciyo oo isaga keeno hunqaaci uu isaga keeno ama haddii qofka isaga uu soo dhaafo mantagu khiyaar la'aan kaga yimaado isna soomka ma uu burinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahy man adracahu alqayu falaysa calayhi qadaa qofkii uu soo dhaafo hunqaaca ama mantagi uu soo dhaafo wax qada ah laguma leh waman istaqaa facalayhi alqada qofkii laakiin isagu iska keena qofkaasa isaga lagu lehay marka iska ilaali fii nahaari ramadaan arrintaa aya inaan la timaado waxaa kaloo waxyaabaha soomka buriya culimmada casriga ay ku soo dareen dawooyinkan ama faleembooyinka u dhigma cunitaanka iyo cabitaanka xididada laga qaadanayo waa haddii booska ay buuxinayaan wey ama hadday dawo hadday yihiin oo qofka faleembo lagu daweynaya iska dawo ay tahay bas ah amase ay tahay irbad lagu duraya ay tahay ama dhiig laga qaadayo uu yahay kuwaasi ma burinayaan laakiin soomka waxaa ka burinaya bay culimmada casriga ku soo dareen ma jirin xilligii nabiga sal allahu calayhi wasalam haddii qofku waxyaabihii cuntada iyo cabitaanka u dhigmayey haddii uu la yimaado maalinkii habeenkii laakiin wax dhibaato ah ma lahan waxyaabaha u waaweyn oo qofka soomkiisa burin kara waa kuwa waxyaaba waxaa jira soomka dhaawici kara laakiin soomkii aan kaa burinayn ayaa jira waxyaabaha insha allahu waxa ugu muhiimsan baan ka sheegayaa waxaa ka mid a alghiibatu waannamiima in dadka la isku diro ama la xanto waxaa ka mid ah inuu qofku been ula kacla uu sameeyo oo waxyaaba beena oo wax ku kallafaya aan jirin inuu macnaha uu sameeyo inuu hadal xumo iyo laqwi iyo cay iyo waxyaaba lamida afkiisa ama dagaal uu sameeyo ayaa ka mid a waa waxyaabaha soomka nusqaaminaya sida loo badan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla zuuri wala camala bihi falaysa lilahi xaajatan min an yadaca طacaamuhu wa sharaabuh nabigu wuxuu leeyahay qofka aan ka tegin waxyaabahan hadda aynu sheegnay oo xanta iyo laqwiga iyo hadal xumada aan ka tegin ilaahay dan kaba leh qofka isaga ah inuu gaajaysnaado iyo inuu maartay sumanaado dan kaba leh bimacnaa waxaa weeyaan wixii laga rabay qofka saa'imka in la sameeyo abaalka wanaagsan ayuusan qofkaasi helaynin marka sida loo badan yahay soonka ma gurnayaan laakiin way nusqaaminayaan waxaad u baahan tahay marka qof muslim haddaad tahay wax kasta oo soomkaada ajirka ziyaadinaya inaad la timaado wax kasta oo burinaya ama nusqaaminayadana inaad ka tagto ayaa loo baahan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa afkeenna iyo adinkeennaba khayrka inuu ilahay ku sugo subxaana wa tacaala bishan ramadaan soomkeeda iyo qiyaamkeeda iyo sadaqaadka ilahay naga aqbalo ilahay khayraadkaada inuu waafajiyo kuwa loo dembi dhaafo ilahay inuu daro subxaana wa tacaala kuwa qoortooda naarta laga xoreeya ilahay inuu daro subxaana wa tacaala xilligan xilligiisa kuwa ilaahay nabad iyo islaamnimo iyo iimaan uu ku gaarsiiyo u qadaray ilahay inuu daro subxaana wa tacaala sala allahu wasalam wbaarak cala nabiyina maxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalam jazakum allahu khayran